wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda Jubbaland ayaa waxa uu kulan isxogwaraysi la yeeshay qaar ka mid ah wakiilada hay'adaha ka howlgala degmada Kismaayo sida warkan ay ku faahfaahinayso wariyahayaga Faaduma Kiin Cali Cilmooge. wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda Jubbaland Cusmaan Xuseen Xaaji Feruus ayaa maanta waxa uu la kulmay hay'adaha ka howlgala magaalada Kismaayo. wasiirka iyo wakiiladii ka socday hay'adaha ka howlgala magaalada Kismaayo ayaa waxay iska xog wareysteen sida ay u socoto shaqada ay hay'aduhu ka hayaan magaalada Kismaayo. wasiirka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga ee dowladda Jubbaland Cusmaan Xuseen Xaaji Feruus ayaa hay'adaha ka codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isku soo diiwaangeliyaan halka kuwan wali waqtiga ka dhicina ay shaqadooda wataan. ugu dambeyn kulankii uu la yeeshay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga markuu soo ilaaday waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga Cusmaan Xuseen Xaaji Feruus isagoona ka warbixiyay waxa ay ku wada hadleen iyo qodobada ay ka soo saareen kulankii maanta uu la yeeshay hay'adaha ka howlgala magaalada Kismaayo. waxaan maanta lahayn shirkaas oo ahaa shir ay hay'adda wasaaradda ay iskugu wacday hay'adaha samafalka ka shaqeeya dowlad goboleedka Jubbaland oo looga hadlayay qaabkay u dhaxmari lahayd wada shaqeyn wasaaradda iyo hay'adahaas dood iyo falanqeyn dheer kadib hay'adaha samafalka iyo wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Jubbaland waxay isla meel dhigeen in hay'adaha si toos ay ula shaqeeyaan wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ay u tahay meesha keliya marka hore intaysan ayagu qaban wax shaqo ah barnaamij kasto ay ayagu wadaan hay'adaha marka koowaad waa inuu soo mara wasaaradda waa focal point wasaaradda markuu soo maro barnaamijka wasaaraddu waxay eegaysaa wixii oo lagu qabsan karo hawshaas ama wasaaradda sida tooska u qabsan karta yiraahdinaysaa tusaale ahaan markaan soo qaato waxaa noo yimid hay'ad oo ka shaqeynaysa caafimaadka wasaaradda qorsheynta waxaa u xil saaran wasiirka caafimaadka inay si toos la shaqeyso ayadoo la wadaagas tala kasto ay wado hay'adda si aysan u dhicin waxyaalaha hore ay dhici jireen oo ah dowladda dhinaceedana wareer badan ka taagnaa oo hay'adaha aanan la fahmaynin qaabkay wax u wadaan hay'adaha laftirkooda barnaamij fara badan oo dhinac aanan la fahansaneen iyo uu ku jiray wareerkaas sida loo joojiyo oo hor loo sii socdo wasaaradda qorsheynta sida hawsha horeyba ay u haysay ee ahayd wax kasta hay'adaha quseeya inay soo maraan wasaaradda taas ayaan haddana ku dhiirigeliyay mas'uuliyiinta hay'adda inay shaqeeyaan talabaad hay'adaha waxaan isla qaadanay in diiwaangelinta wixii hay'ado hadda diiwaangelisan sidooda inay u shaqeeyaan intii laga gaaray waqtigii oo uu dhacayo laysankooda kuwa aan diiwaangelsaneen iyo kuwa cusubba inay isu soo diiwaangeliyaan sida ugu dhaqsiyaha badan hay'ad aan diiwaangelsaneen amba aysan ka haysan wax sharci ah inay u shaqeyso amba ka shaqeyso dowlad goboleedka Jubbaland laga bilaabo waqtigan xaadirkan hadlayo inaysan ka shaqeyn karin dowlad goboleedka Jubbaland inta ay iska soo report gareynayso oo sharciga ay ka qaadanayso hay'adda lagu arko ayadoon oo sharci haysan ay shaqeynaysana waxaa la taagsanayaa sharciga iyo dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland uu qabo